waan dhawahay marka koowaad waa mahadsantihiin danan idaacada danan waxa weeyaan markasta waan wada xididnaa waana ku mahadsantihiin qaabka wacan bulshada aad ugu gudbinaysaan xogta markasta waxa weeyaan jirto iyo waxa weeye xaaladaha sida yihiin Hirshabelle aniga uu kursigaani warigaani waa soo jiitamayay waxa weeyaan hadda doorashada waxa dhiman laba kursi hartay labadaas kursina waxa weeyaan hal kursi waxa isku haysto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka halka kursi kaleetana gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha isku haysteen laakiin midka gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha isku haysteen boqolkiiba 90 asiga waa xalisan yahay waxa sabab u ah waxa jirto doorashada markii la qabanayo waxaan ognahay hadaan Soomaali nin kasta inuu nin hoosta ku wato ama dhaqaalaha ka qaato ama waxa weeyaan dana kale ka lahaado nin kasta nin buu wadaa waa gartay marka waxa keenaysa in waxa weeyaan ninka uu wato ama dhaqaalo hore ugu cunay ha noqoto ama waxa weeyaan hadda waxa uu ka sugaya ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto waxa keenayo qofkii asaga uu watay oo waxna ka qaatay ama waxa uu ka doonayo soo ku soo saari lahay ayay salku ku haysan khilaaf ay dhig kar ayaga waxa weeyaan Hirshabelle sida ogtahay waxa weeyaan beelaha hadda kursiga ugu weyn ee dooda ka taagantahay isku haysto oo iska leh beelahaasi saogtahay ayaga Hirshabelle isma fiicna marka waxa weeyaan maadaama isku fiicneen hadana uu ka soo jeedo ninkan madaxweyne ku-xigeenka ah asagii ayaa taagan oo kursigu doodayo maadaama ay odayaashii iyo waxa weeyaan uraaskoodii iyo ayaga aysan waxa weeyaan Hirshabelle in badan ay ciifa kala dhaxayso misana aysan ogolaynba qaarkood way maanta ay uga hadlaan misana ay soo dhaxgalaan meesha ma taalo ayagoo tabashadoodii kale la xalinin saadartii ay soo dhaxgali laayeen ilaha qaar ayaa waxay sheegayaan in uu war ka hayo ugaaska uu og yahay arrintan si hoosana uu la socdo saadarteedna ugaasku uu ku dhinac yahay dhanka guud laaw beelaha xogaha qaar taas sheegayaan kuraastani waxa ay noqon doontaa laba mid ay noqon doontaa haddii madaxweynuhu uu tanaazulo madaxweyne